gudoomiye ku-xigeenka kaabeenka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani mudane Axmed Xiis Cabdi Ducaysane oo wareysi gaar ah siinaya TV-ga caalamiga ee Ariel ayaa dhaliilo culus u soo jeediyay gudida kaabeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo hore dhaliilo ugu soo jeediyay xisbiga wadani waxaanu kaga jawaabay qoladan kaabeenka ee gobolka kulmiye u qaabilsan markii ay ogaadeen inay ku guuldareysteen shaqadoodii loo igmaday ee ololaha gobolka ee dadka ay madaxda u yihiin dhowr jeer ay city plaza shirar iyaga lagu faaqidayo lagaga yeeshay oo xataa ay gaadheen xilkooga laga qaado waxay miciinsadeen maalin walba inay arrimo beena oo aanay saliid qaatoon lahayn ay yiraahdaan reer burcoseen ugu wada ognahay waa dad walaala waa dhalinyar ubaxa oo soo wada kacday xalaale iyo waxa isku hayaana ma jirto dadka tartanka ku dhaxeeyana waa siyaasiyiinta waaweyn ee musharaxiinta shacbiga waxa weeye waa codun waxay u dareeraan waxa isku laayaan ama isku shidaana ma jiraan geesta kale gudoomiye ku-xigeenka kaabeenka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadani ayaa ku dhaliilay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka qorshe uu sheegay inuu lahaa xisbiga wadani oo ka daba sameeyay isla markaana uu ku fashilmay waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxana uu yiri niraahe wasiiradii nin kamid ah oo wasiir dowlaha caafimaadka ayaa guri kamid ah guriyaha qaraacay waxa ka soo dhaxbaxay inan shaqaale ka ah nursingka isbitaalka Burco wuxuu ku yiri xisbiga kulmiye ayaan idin weydiisanaa cod inaad nasiisaan waxay ugu jawaabtay 6 bilood u dambeeyay mushahar maanan qaadan sidee baad noo weydiisanaysan maanta codka hanoo dambeeyay bal caruurtan yaryar gaajaysan aanu dab u shidnaa mushaharkoodii keena waxa uu wasiir dawlihii dhamaa ee caafimaadka waxa way 7 sano lama arag meel ay marayaan qofka doonana gawaadhi bay ku dhaafayeen albaabadana oo ka xidhanayeen maantana waxa weeye waxay weydiisanayaan cod ugu dambeyntii waxa uu sidoo kale xisbiga kulmiye ku dhaliilay nasiib darro xukuumadii dhameyd ee amniga ilaalinaysay inay maanta rasaas nool ku ridaan iyagoo marka horena khasab iyo jujuub ku soo saaray shacbiga reer Sool maantana inay shali ku ridaan rasaas waa nasiib darro waxaan leenahay amniga nabada amniga lagu noolaada amniga wax lagu maamulaa amniga kala dambeyn leh xukuumaddu amniga ilaaliso mucaarid hadaanu nahay amniga waanu ilaalinaa anagana dadka ku dhiirigeliya ee qaybtiina iyo xaqiina ayaan looga soo dhicin hadad xukuumadda tiin Cabdilaahi Xudayfi Ariel TV Burco.